ciidamada kumaadooska xoogga dalka ee Gorgor iyo guutooyinka toddobaad iyo saddexaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay howlgal burburina ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolada Shabeellooyinka. Howlgalkan ayay ciidamadu waxay ku burburiyeen maxkamad beenaadkii Al-Shabaab ay lahaayeen kuwaas oo ay dadka uga qaadi jireen lacag baad ah. Sidoo kale ciidanka ayaa howlgalkaasi ku qaarajiyay horjoogayaal Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Basra oo hoos yimaada degmada Balcad. Sidoo kalena ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fashiliyay gaari dhayna ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay kaasi oo doonayeen in ay ku waxyeeleeyaan dadka shacabka iyo sidoo kale ciidamada halkaasi ku sugnaa. goobta gaarigu ku qarxay ayaa ah deegaanka Walaamoy oo 3 kiiloomitir u jira webiga Shabeelle. sidoo kale ciidamada kumaandooska xoogga dalka ayaa howlgalka ku dilay horjoogihii maleeshiyaadka Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Basra kaasi oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil Siidow iyo maleeshiyaad kale oo gaaraya 3. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida uu sheegay in ujeedka howlgalku uu yahay burburinta goobaha maleeshiyaadka Al-Shabaab dadka ay ku baadaan isla markaana goobo badan ay ciidanku ka burburiyeen. taliya Odawa ayaa sidoo kale sheegay in ciidanku ay u diyaarsan yihiin sidii dalka oo dhan looga sifayn lahaa maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. ciidamada ayaa intii howlgalka ay wadeen waxay gacanta ku dhigeen tuulooyin kor u dhaafaya 30 kuwaasi oo maleeshiyaadku dadka ay ku dhibaatay jireen, waxaana qaarkood ka mid ah Buulo Kunto, Daniga Baalo, Basro iyo tuulooyin kale. howlgalku intuu socday ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen dad looga shakisan yahay qaarkood in maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin. sidoo kalena baaritaano ay ka sameeyeen xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ay ciidamadu howlgalka ay ka sameeyeen ee u dhaxeeya deegaanka Basra iyo sidoo kale Daniga Baalo ayay ku soo saareen miinooyin dhowr ah, qaarna ciidamadu ay qarxiyeen. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta codka ciidamada, Basro, Shabeellaha Dhexe.